dagaal beeleed maalintii saddexaad galay ayna ka dhasheen dhimashada kontomeeyo ruux iyo dhaawaca tire intaasi ka badan ayaa ka socda deegaano hoostaga gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Ciidamada dawladda iyo kuwa deegaankana dhowr jiho waxa ay ka weerareen saldhigyo dagaalamayaal ka tirsan shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe. soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Cumar Guuxadii oo muuqaalka ku soo gaaran la sii wadaag saaxiibada qaybta hoose ee faaladan aragtidaada noogu reeb. mar kale soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ku bilaabeynaa dagaal beeleedyo muddo 3 maalmood ah ka socda deegaano hoostaga gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe xuduud wadaaga ay yihiin. waxaana sidoo kale la soo warinayaa in dhimashadu kor u dhaaftay ilaa iyo 30 ruux oo loo kala qaadayo magaalooyin dhowr ah oo ka kala tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. wararku waxa ay sheegayaan in dhaawacyadu tirabeel ay yihiin oo ilaa iyo hadda dagaalka uu sii soconayo marba marka ka sii dambeysana maleeshiyaadku ay helayaan gurmadyo xoogan iyo hub culus. waxaana sidoo kale jira dadka dhintay in ay ka mid yihiin dadkii dagaalamay oo dhinacyadii dagaalamay ah. dhaawacyada ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay in qaarkood la qaadi waayay oo ay liifyo saaran yihiin, sidoo kalena dhulka lagu dagaalamay uu yahay dhulkeena oo beera ah. waxaana sidoo kale jira in beeraha lagu dagaalamayo ay magacyadoodu ay yihiin Jerbulu ilaa iyo maxaa ka reebay halka la yiraahdo oo hoostaga gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. waana dhul beera ah oo maleeshiyaadka maalmihii ugu dambeeyay isku haysteen. khasaraha dagaalka ka sii dhalanayna waxa ay dadku deegaanka xaqiijinayaan in uu marba marka ka sii dambeeyo sii kordhayo xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalooyin dhowr ah oo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexena. saaka ilaa iyo hadda dadkoodii ayaa buux dhaafiyay oo meedadka qaar ayaa wali aanan la qaadin oo halka lagu dagaalamay yaala. dhaawacyadana sidaasi oo kale qaarkood dhigbax ayay u geeriyoodeen. dagaalkana wali waa uu sii soconayaa, gurmadyo xoogan ay dhinacyaduna helayaan. inta markaa laga gudbo dagaal beeleedyadaas subaxnimadii hore ee saaka, gaar ahaan saacadu marka ay 9 subaxnimo ama 3 saac sida ay Soomaalida u yaqaanaan, waxaa bilowday dagaal dhowr jiho lagu qaaday oo dagaalamayaal ka tirsan shabaab lagu qaaday. ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaana dhowr jiho ka weeraray saldhigyo dagaalamayaal ka tirsan shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoostaga degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. hub culus ayaa la isku adeegsanayaa dagaalka oo ilaa iyo saacadan soo gaaray. waxaa la soo warinayaa inuu ka dhashay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dhulka howdka ayaana la isla galay. Runirgoodna waxay ahayd halkii ay dagaalamayaal tiro badan ku sugnaayeen oo ugu dambeyn laga saaray. haddase waxaa la soo warinayaa deegaanada howdka ah ee hoostaga degmada Runirgood in dagaalka uu ku sii shaqay misna uu gudaha u sii galay, xabaduna ay weli socoto. hub culus ayaana la maqlayaa. ciidamada dawladuna gurmad xoogan ayay helayaan oo deegaanada kale ee Runirgood ku dhow ayaana laga soo gurmadaya. dadka deegaanka sidoo kale waxay xaqiijinayaan in khasaraha rasmiga ah ee dagaalka ka dhashay ilaa iyo hadda aanan la xaqiijin karin, maadaama uu dagaalka dhul howda uu ka dhacayo. dagaalamayaasha shabaabna waxaa la soo warinayaa halkii lagu weeraray in laga saaray oo saldhigyada ay lahaayeen qaybo ka mid ah burbur xoogan loo geystay oo ciidamada dawladdu ay gudaha u galeen. sidoo kale halkaas waxaa la soo warinayaa inay hub kaga tageen oo ciidamada dawladda gacanta u galay. ilaa iyo haddana wax war ah oo ka soo baxay dagaalkaas oo cid xaqiijin karta labada dhinac ka madax banaana ma jiro.